qodobka koowaadna maarayaha madaarka in laysiyo nin madaarka maalintii ugu dhex dagaalamo iyo caaqilka maxaa sida loogu galaya iyaguna hadday heshiis doonayaan waa inay qoraan dhammaan dadkii buurta gacal libaax oo dhan waa inay shaqaale qoraan ciidan iyo bilays ninku doonayo inan kasta oo la furayna waa inay ama mashruuc ama shaqo heshaa heshiiskii baa ninka idin tilmaamaya inankii yaraa ee gumbuur ee fadhiyay in gaari loo iibiyo bartiisana loogu tago ee curyaamay haddii 20 oday intay soo fadhiistaan yiraahdaan liibaan wuxuu ku dhacay waanu ka xunnahay dad xun baa helay waxaan la laabay idaacadii iska daa oo iyaga ku dhaaf cid hadlaysa ma aragtay ila doqon cid baba lagu dhaafay haddii qurba joogto markii soo fadhiisan lahayd war caaqilka gumba heshay waxaan la horoolka qurba joogta ay hadashay waaba ay ku hadlay waa lagu hadlay iska daayo wax fara ka dhaaf gunta dhashay rax iska sii daaban oran saaka yaa ku dhaafa ila idin xataa maydaan oranin war caaqilka u sii hadle cid ku dhaafa waay afar ina ka yara dhalinyarada gumbuura ay hadlayay fariidka iyo kii ay habar jecle TikTok fadhiyay iyo inaan TikTok ka hadlaysay waa ashxaas aan tirin karo ashxaas tan abaal bano haya waa mahadsan yihiin subixi duqaanka lay fadhiisay hay guriga heshay saaka fadhiya saaka aan darmay mercy bay hoos fadhiyaan one single day baan idaacada ku jiray kaadi sarjoogay kaga socota dalkana waa ka sidaala ya maxaa dhacaya salaadiintii ka hadlayso sicraalaana qabsadaya ya sudaanka ciise muuse soo fadhiistay sudaan xasan ninkii siraaba shakii waa la kala shakii one single day wixii baa reer berbera anaga ma dhulka yagii waa ay bismillaahir rahmaanir rahiim boowe tiin daadkayday soo jabhadaysay fadhiday taale dawladii musabixay ninkii daadka ay qamar sanaaciga Soomaaliya qaan kaga siiyay ayaan boowe sanduleeyan geed ku xidhan war naga fadhiisana waa leeyahay haddaan ka wada loolana mid Xuseen Meyno saaniga fuustooyin yaryar lagu soo riixay cawaran oo madax ku tiyaaho meesha fadhiya aan waxba hasaaw hayay 3 xildhibaan iyo 2 tuug haddaan reerka xurmeynay saasan u sii deeyla waxba sida u soo deeyla walaal shalay markii dhibti jirtay haddaan caaqil ku ahaa maanta maxaa markaa aniga markii dhibti soo gaadhay Abubakar looga miyay kaga baxsanaysaan markaa tiinidin kaga maan baxsan inantii naaska la dhacay Muuse Cabdalla kaga maan baxsan Abubakar looga kaga maan baxsan cilla markii inta la cadeeyay kaga maan baxsan indhaha markii saamunta lagaga shubayay kaga maan baxsan ciida markii lagu shubayay indhaha kaga maan baxsan maanta kaga baxsanaysaan markaa aniga in jeelkii la geliyo la karbaasho la yiraahdo liibaan abaal ma laha miyayda khajinaynin Abubakar looga walaysa minkum rajul rashid reerkii koobaad arrintan cambaarayeen sugayay idinku ahaa miyaan kaga baxsaday waqtigaadka war miyaan idin kaga baxsaday markaan arday la idin dhaafin in gabar la idin dhaafin 36 ka ardayga garxajis reerka quraatay xiliyaas alla uga dhuftaba aydeen gacanta loo saaray reerka quraatay madaxweynahoodii sharaxnaaye liibaan u halgamayay baaruud indhaha lagaga tafay fiil lagu soo daweeyay idaan ahay war miyaydan ahay reerka quraatay garxajis taariikhda u sameeyay miyaydan ahay 36 ardayo nin waliba reer waliba siyaasi wato miyaan sida idin qaadan oo sida idin geeynin saaka inaad tiraahdaan Muuse Cabdalla yiraahdo qof Muuse Cabdalle wax iga sheego waxay tilmaamaysaa qofkaas inaanu gardhiga garxajis balahay gunnimay tilmaamaysaa markii aniga jeelka lagu soo jajabiyay jaamac gaabisho ugu soo jajabiyay inaad jaamac la safataan gunnimay tilmaamaysaa jaamac maalinta adag suuq uu idinka fadhiyay wax xun bay idinka tilmaamaysaa ardayadeydana qaar inay xumaadaan oo ay gunnimo qaataan oo ay fawaaxish qaataan oo ay falxumo qaataan anaan raalli ka ahayn gun caaqiluma iyo gobbaan caaqilu ahay ina guntiin iyo gobtiin bana Muuse Cabdalla labadaas oo kala saaraysan haddaydan daadifaynin filkii meesha yaalay war ma ina miidiyaha qaar idin kamid ka soo caytamaan ina qabataan iyo garan weydano tiraadana khasnaa sida sinema matalaan ma inu jaamic gaabush iraado waa Bakar looga yi gurmada xaqoo ku maqnaa jaamic gaabush markii naas qaabla laga la dhacay xaqoo ka maqnaa markii xiniyaha rag loo saaray saaka intuu aniga awood dawladnimo iyo adeegsadon kursigan keenay koobkan caanaha ku shubay وعاني وجهي ka soo sayray niya doonaysan in la idinku yiraahdo talaya Bakar looga oran maayo talaya ciida galaya talaya reegab doonay talaya garxaji saayibaan leey war maalinta adkeyd war idinka saaray qabta akhasunaasiyada qabta oo dhinac ka mara oo xaqi caruurta uga qaada iyaguna hadday heshiis doonayaan waa inay qoraan dhammaan dadkii buurta gacal libaax oo dhan waa inay shaqaale qoraan ciidan iyo bilays ninku doonayo sawirkaasi qodob ma inan kasta oo la furayna waa inay ama mashruuc ama shaqo heshaa heshiiskii baa ninka idin tilmaamaya shanta cisheen maqanay baa heshiiskaasi ka yahay saddexdii goboleen tagay dhibaatooyinkii aan ka soo tilmaamay in la wada qaato oo la xalinayo
muddada 5 sano ee xilka lagu fadhiyo in la qabto oo la wada xaliyo soo saddex ma hataasina inankii yaraa ee gumbuur ee fadhiyay in gaari loo iibiyo bartiisana loogu tago ee curyaamay soo qodobkaasina afar maaha u qoro qodobada taasaan idinku leeshiineen idaacadda ku baqtiinaya idaacadda waxaan kaga baqtiinaya madax kuti iyo cawar iyo xukuumadda meesha fadhidaba waxaan idaacadda kaga baqtiinaya inankii yaraa gumbuur ee curyaanka noqday bartiisa in loogu tago one su'aalkaasi qodob maaha qodobka koowaadna maarayaha madaarka in laysiiyo nin madaarka maalintii ugu dhex dagaalamo yiri caaqilka maxaa sida loogu galaya maarayaha madaarkana ninka in laygu dhiibo waayo madaarku waa kan ka dhoofiyo kana soo degayo taana in madaarka laysiiyo ninka ay dagaalamay fariidka in maarayaha madaarkana isaga loo dhiibo number su'aalkaasi qodob maaha waxa la shaqaalaysiinayaa 250 dhalinyaradii safka ugu horeysay halkanka ku jirtay min cirgaabay la cilka hargeysa waxa la wax shakhsiyan anigu doonayaan laba jiro sidaan xorta oo hayaan bariiskaygu banaanka u yaala inta hadii la xalinayo 150 qurba joogana kaarkii madaxtooyada la siinaya heshiiskaasi haduu dhaco ahlan wa sahlan hadaa diidanna cirka soo gujiya saaka xor baan dalkii dimuqraadiyadda joogay dhalinyaradii la ciilay saraakiisha loo ciilayna waxay ii siinaysan qayb kamid ah maalinta saraakiisha bixinaysan qodobadaasi hadday heshiis yihiin garxadii sortiisa iyo Soomaaliya horteeda ku saxeexayay ama hima taalo waji malihi way ama hin weydeen maalintan ha war reerkay wada wariga daaye war xildhibaan hadaba soo sharaxo warka daaye miya ama hiseen soo jeelkay meedan dhigin ama hima taalo saaka waa qadin weey reernimo waa disheen tulnimo waa disheen xisbinimo waa disheen halkan waa disheen waa qadin baan idin ku yiri one single day in Soomaaliland saasay idin wada haddaan sawaariikh kala soo rido wallahi xildhibaanada ayay habara war soo eriyeen qaarkood oo golayaasha fadhiisanayeen kuwii rasaastii hubkii adduunyada soo iibinayay ha wallahi billahi tallahi banaanka la iswada keenaya qadin weeye qodobka caadiga soo heshiiska ma maqlaysaan intii ku dhaawacantay ee mudaharaadadii ku dhaawacantay in qof walba gaari yar oo duqaana oo ku shaqo tago loo dhiibo ama helkoodu ha wada ama isagu ha soo wado hablihii la furay inay shaqo tagaan ama mashruuc helaan laba soo maaha iga qora liiban baa loo taag waayay yiraahdeen inta hadii la fuliyo ahla wa sahla maarayaha madaarka in la siiyo ninkii maalintii dagaalamay oo qodobka koowaad maarayaha madaarka dawladda miyaan xaq u lahayn anigu cadda gudaa nin keensaday oo ka kala mid keensaday oo ka kala oo inuu Saciid baa keensaday oo Daabshiil baa keensaday xaqayga miyaan mid ku keeni karin xataa wasiir ciidan saddex kale yahay saaka jirine inankii maalintii madaarka ii dagaalamayay ka horta maarayaha la siinaya maaraye markaas ay xukuumadda idin noqonaysa wandeynaya xataa jaamaca war ku dhaafaya way 250 dhalinyaro oo min cirgaabay la cilka hargeysa oo halkan ka safkooda ku jiray in la shaqo galiyo 250 shaqaale qodobka labaad soo maaha ama hima jirto la samaahin maayo ama hima jirto 250 card oo madaxtooyada qurba joogta qof kasta xisbiga wadani shaqadiisa ku waayay inuu shaqo helo oo runta oo baaritaankiisa leh gudina waa loo saaraya shalay adigo iyagoo shaqaysanayo Muuse iyo dawladooda iska dhex saaraya soo garxadsinaba kuma lugoyn soo shaqadoodii kumay waayin waa inuu ku noqdo oo la fuliyo oo la sameeyo gud loo saaro hawsha xalay dhigay ku kariyana way kamid ahay qofkii shaqadiisa ka soo noqday in lagu celiyo maarayaha airportka isagana waxa la siinayaa ninkii igu dagaalamay qofkii shaqadiisa way noqon weyday muxuu sheegayaa xukuumadda Muuse 6 bilood hore tiray muxuu sheegayaa markii dambe Saciid Solo markhaati furay 5 milyan inay dhigtay shaqaalana ogolaatay ciidanna ay ogolaatay muxuu sheegayaa rag bay la goysay waatii indhaha adkayd in dibadda ka joogay ee aanay sirteeda haynin hadda soo ma maqlaysaan soo tacabkayga meedan xirin waayay saakana sirtiinaan idinka hayay intaas aan sameynaysaa xaqayliga ergiya qaaqa soo diraa intaas oo fudud miyay culustay cadda gudoon shalay toole 7,000 meeraad ka soo siinayay baa wasiir keensaday maareeya ugu sareeyay xilalkan dalbaday darajada in yaro ciidanka kamid ah 250 qurba joog oo kaarkii madaxtooyada 250 dhalinyaro oo safka hore oo halganka oo aan idin keenayo oo garxad soo dhan ka kooban